السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كمركل السود واضح أدي هذا ومحسنتين مانت واحد شن يتبان كبش السجالات سنة كلا بدكم أفري اللباتنك مقال كان مانت وحربا إن نذكر السعودية هدي الله يدمه دور أفتي أو كلا دوان أو لقاضي دودي هبين مدي ثلاثة أيشان دونالد ترامب يولي بكاملا هاريس كذب oo aftiyada badan ay muujinayaan in Kamala Harris ay ku guuleysatay laakiin Trump oo wali guul isaguna sheeganayo diidayna inuu mar labaad la doodo Kamala Harris ayaa aftiyadii ugu dambeeyay ee la qaado waxa ay muujinayaan in Donald Trump laga sareeyo iyo waliba codadka electoral college-ka halkay kala taagan yihiin gobolada codadkoodu ay isbedbedelaan ee todobada ah sidoo kale yaa loo kala saadaalinayaa in ay ku kala guuleysan karaan sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago marka hore aan ku hormaro sida dooda qofka ku guuleysta aftiyada ugu horeeya ee la qaado waxay muujisaa in dadka laga yaabo inay u codeeyaan oo codbixiyaasha diiwaan gashan ah in halkaasi uu dhibco ka heli doono marka dhowr afti oo kala duwan oo la qaaday hadda doodii kadib oo 10kii bisha ahayd habeennimadii talaadada haddana 5 maalmood ay ka soo wareegatay ayaa waxay dhammaantoodba muujinayaan in Kamala Harris ay ilaa iyo 5 dhibcood ay ka sareyso Donald Trump markii dooda la galayay inta badan waxa ay u muuqatay in Trump ama hal dhibic uu sareeyay ama ay sinaayeen aftiyada qaar sidaas ay sheegayeen qaarkood 49 qaarkoodna 48 in Trump uu haysto Kamala Harrisna 47 haysato ay aftiyada kala duwan ay muujinayaan idaacada kala duwan iyo ururo kala duwan ayaa aftidan sameeyay marka mid waliba waxa laga yaabaa natiijadu hal iyo laba iyo inay isdheer tahay marka hadda aftidii ugu dambeysay oo la qaaday waxay muujinaysaa in Kamala Harris ay 5 dhibcood ka sareyso Donald Trump doodii markii ay kaga guuleysatay kadib hadda codbixiyaasha diiwaan gashan markii afti laga qaaday waxay muujisay Kamala Harris 50% inay doonayaan inay iyada u codeeyaan halka Donald Trumpna uu helay 45% marka 5 dhibcood ayaa halkaasi looga sareeyaa sida aad inay sheegayba aftiyada marka la qaadayo dad u dhaxeeya 1000 ama ka yar ama ilaa iyo 2000 ayaa la weydiiyay u codeynayaan doorashada ma ahan dadka Mareykanka dhan in la wada wacayo siiba waxa la fiirinayaa gobolada codadkoodu ay isbedbedelaan waa dadkaasi dadka inta badan la weydiinayo laakiin gobolada kale sida ay sheegay waa Republican ama waa Dimuqraadi oo inta badanba waqti lama gelinayo marka hadda aftidan waxa laga qaaday 1755 qofood waxana sameeyay Yahoo News ama YouGov sidoo kale Morning Consult ayaguna waa ay sameeyeen dhammaantoodba 12kii bisha ilaa 13kii bisha ayaa la sameeyay waa arbacadii khamiistii ilaa iyo jimcihii ayaa la sameeyay aftidan oo la qaaday marka waxay muujinaysaa in Kamala Harris ay 5 dhibcood ka sareyso Donald Trump sidoo kalena dadka iyaguna codadkooda ama madaxa banaan oo independent-ga ah dooda ka hor Kamala Harris 9 dhibcood ayay dadkaas in iyada ay u codeeyaan ay ka sareysay Donald Trump oo waxay haysatay 44 Trumpna 35 uu haystay hadda doodii kadib hal dhibic ayay ku darsatay oo 10 dhibcood ayay ka sareysaa waxaana hadda ay haysataa 47 halka Trumpna 37% uu haysto inkastoo Trump isaguna wali guul uu sheeganayo Reuters sidoo kale waxa jirta iyaduna afti kale oo ay sameysay 12 ilaa 12 bisha oo muujinaysa in 47 haysato Trumpna 42 uu haysto marka waa aftiyada kala duwan oo ay muujinayaan ololaha doorashada ayaa sidoo kale dib loogu laabanaya sida aan sheegay bashalay Kamala Harris markeedii 12aad wax ka yar 2 bilood iyadoo hadda ololaha doorashada ku jirta ayay gobolka Pennsylvania tagtay waa gobol muhiim ah oo 19 cod oo electoral college leh haddana mar kale ayay dib ugu laabanaysaa talaadada oo markeedii 13aad ayay noqonaysaa khamiista waxay ka ololeyn doontaa Michigan halka jumcahana Wisconsin ay ka ololeyn doonto marka waa goboladaasi todobada hadda todobaadkan xagee joogtay North Carolina waa ay joogtay Pennsylvania waa ay joogtay ku xigeenkeedana Wisconsin iyo Michigan ayuu ku ololeeyay marka sidaas ayaa la isku daba maraya waa goboladaasi todobada oo codadkooda isbedbedelaan gobolada la doonayo in lagu laalaabto ku dhawaad 2 bil ee hadda wax ka yar ka harsan doorashada sidoo kale Donald Trump iyo ku xigeenkiisna waxay ka ololeyn doonaan gobolka North Carolina waxa uu Trump tagi doonaa Wilmington arbacada halka JD Vance uu tagi doono magaalada Raleigh halkaas ay iyaguna ay ka ololeyn doonaan ninka Trump ku xigeenku ah JD Vance 2 jeer ayuu magaciisa bedeshay qofku magaciisa waa bedelan karaa hadii uu rabo marka 2 jeer ayuu magaciisa bedeshay magaca uu ku dhashay waxa uu ahaa James Donald Bowman
marka magaca ayna awoowayaasha maba dadkii awoowayaasha u ahaa oo magaca dhexe oo Vance u ahaa ayuu soo qaatay. waxaa la leeyahay intii uusan guursan ka hor sanadkii 2014 markii jaamacadda Yale uu ka qalin jebinayay sanadkii 2013 bishii Abriil ayuu magaciisa bedelay. markii hore waxa uu magaciisa ka dhigay James David Hamel ayuu ka dhigay markii magaciisii koobaad oo James Donald Bowman uu bedelayay magaca uu ku bedelay waxa ahaa James David Hamel. laakiin ugu dambeyntii hadda magaca hadda uu wato oo James David Vance ayuu qaatay. marka 2 jeer ayuu magaciisa bedelay. magacaasi marka ayuu hadda wataa ayaa la leeyahay. sidoo kalena waxaa muuqanaysa in dadka Mareykanka iyaguna sidoo kale la weydiiyay in qaarkood ay muujinaysa hadda in codbixinta ay meelaha qaar ay ka sareyso Kamala Harris ilaa iyo 7 dhibcood sida hadda ABC News midan ay samayso oo 52% ay haysato isaguna 46% uu haysto. sidoo kale dadka Mareykanka waxaa la weydiiyay sidee u aragtaan doodii kadib musharaxiintan fikirkooda ay iyaguna ka dhiibteen sida ay u kala door bidayaan. Kamala Harris waxaa door bidaya oo dhinaceeda u janjeeray ilaa iyo 37%. Les Favre dadka aan door bidaynin iyaguna waa 23%. dadka dhahaya no difference wax isbedela doodii kadib ma aanan dareeminna oo mowqifkooda waxba ma aysan ka bedelminna waa 38%. sidoo kalena Trump dhinaciisa dadka door bidaya waa 17% inay u codayaan. dadka oo less favorable ah iyaguna aan door bidaynin waa 30%. dadka yare doodii kadibna fikirkeena waxba iskama bedelin oo wali Trump ayaan u codaynayna waa 50%. halkaasi marka isaga ayaa wali ku sareeya laakiin dadka door bidaya ayaa aad u yar. sidoo kalena Taylor Swift waxaan ognahay doodii kadib inay taageertay Kamala Harris iyadana afti ayaa la sameeyay maxaa isbedela oo dhacay. marka 12 ilaa 13 bish ayaa la sameeyay. dadka yiri waxaan laga yaabaa inaan u codayno Kamala Harris oo aan u janjeerna waa 6%. dadka less likely ah inay u codeeyaan iyagoo taageeradii oo ay taageertay Taylor Swift darteed ugu codayaan Kamala Harrisna waa 13%. taageeradeedu wax isbedel ah ma sameeyeen dadka yirina sidoo kale waa 81%. marka wax isbedel ah weyn ma muuqdaan ayaa la leeyahay marka laga reebo in website-kii la iska diiwaan gelinayo dadka doonaya codkooda ay dhiibtaan inay iska diiwaan geliyaan ay dad ku dhawaad 500 milyan ah ay booqdeen kadib doodii kadib. sidoo kale dhinaca Electoral College-ka ayaa waxa aan rabaa inaan idila socodsiiyo halka la kala taagan yahay. Electoral College-ka marka la eego gobolada Republicaanka iyo gobolada Dimuqraadiga ah Donald Trump waxa uu haystaa 219 halka Kamala Harrisna 226 ay haysato. waa marka codadka gobolada Dimuqraadiga ah oo la filayo dhamaantoodba inay Kamala Harris ay u codayaan iyo gobolada Republicaanka oo iyaguna u codaynaya Trump marka intaas ayay kala haystaan. marka waa 93 codadka lagu tartamayo gobolada 7 ah sida Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Arizona iyo Nevada. waa goboladaas iyo waliba Georgia gobolada lagu tartamayo. marka gobolada ay tahay in Trump uu ku guuleysto maxay yihiin? gobolada ay tahay in Trump uu ku guuleysto waxay yihiin North Carolina oo 16 cod leh, Georgia oo 16 leh iyo Arizona oo 11 leh. marka Trump hadii 43daasi cod loogu daro waxa uu tagayaa 262 oo Electoral College. sidoo kale Kamala Harris gobolada ay tahay inay ku guuleysato waxay yihiin Michigan iyo Nevada waana 22 cod marka codadkooda la isku daro marka 247 ay iyaduna imaanaysa. inkastoo hadda goboladan Midwestiga sida Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania ay hogaaminayso Kamala Harris, Trumpna dhinaca North Carolina iyo Georgia goofaftiyadii u dambeeyay qaarkoodna ay isku dhow yihiin. marka labada gobol ee muhiimka ah oo Pennsylvania oo 19 cod leh iyo Wisconsin oo 10 cod leh ayaa waxay yihiin gobolada marka tartanku uu ka taagan yahay. marka inkastoo hadda loo saadaalinayo goboladan Midwestiga sida Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin inay Kamala Harris ku guuleysan karto haddana wali tartan xoogan ayaa ka jira. marka sidaasi ayay kala noqonaysaa. waxaan ognahay codka shacabka ee popular vote-ka isagoo musharaxu ku guuleystay ayaa madaxtinimada oo lumin kara codka Electoral College-ka looga guuleysan karaa sida dhacdayba 20 sano u dambeysay 2 mar dhacday. Donald Trump sanadkii 2016 iyo sanadkii 2000 oo Bush isaguna codka shacabka uu lumiyay laakiin Electoral College-ka uu ku guuleystay. marka halkaas ayaa hadda la kala taagan yahay. waxaan 52 maalmood ayaana ka harsan doorashada iyadoo sidoo kalena hadda gobolada 7 ah ay musharaxiintu 52daasi maalmood ay ku laalaaban doonaan si ay dadka goboladaasi ku dhaqan ay uga dhaadhiciyaan mid waliba codkooda inuu helo. waana arki doonaa marka waxa isbedela
aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo